gabadh masriyada oo muslima yaa sagateeradu waxay ka jirtay qaramada midoobay 1970aadkii bay ka ahayd 76 waxay qortay kitaab la yiraahdo gabadha waxa la yiraahdo Dr. Zuhaira Sukri waxay qortay kitaab la yiraahdo Al-Islam Ath-Thawri kacdoonkii islaamku caalamka ka sameeyay waxay tiri markaan qaramada midoobay la shaqeynay sagateerka guud ahaa ayaa aad waxa loo muraajacan jiray bay tiri gumaystayaasha iyo waxay sameeyeen iyo say wuxuu gumaysteen iyo nimanka reer Yurub ee qaramada midoobay hadii lagu dhaawaa gaalada cadaanka kaliya ee inagu daba socod baynu iskana waxay ii sheegeen bay tiri in sababa madaaris badan oo Afrika ka jira oo Quraan loo xiray oo sababihi maxaan ku dhahdayay tacliinta maxaan ku dhahdayay aan marka diiniga ku dhisnayn loo saramariyay oo diiniga loo hoosaysiiyay inay kamid ahayd fikrad la qaatay oo ahayd dadkaynu gumaysanay oo dhan saadaynu u nahay ilaa dadyowga muslimka amooye war dadka muslimka maxaynu saadiyi ahlu sharaf inoogu arkilayihiin oo nin iyaga kalituna inoogu arkaan hatta haday kuwa adduunka ugu liitayihiin gabadhaasi waxay tiri waxay yiraahdeen sirta ah qofka muslimka inuu cimlaaq yahay oo maskaxdiisa mooyo tu kale aanu qaadan karin badiyaba waa quraanka baa la yiri quraanka waxa ku jira baa la yiri muslimiintu ilmaha waxay baraan isagoo 7 jira ama 9 jira ama 8 jira wax kala baran baa waxa la baraa kitaab ay ku jirto 50,000 oo kelmadood oo mufradul kalimaha oo kala macna duwan waa quraanka kariimka way 50,000 oo kelmadood oo luqawiya ku jirta bay tiri ilmihi marka cimlaaq mu noqonaya abqari qofaan dadkanba waxba u arag buu noqonayaa maskax ahaan iyo cilmi ahaanba u bislaado naadija gabadhaasi marka waxay sheegtay inay taasi keentay in Azhar ninkii ugu sareeya iyo madaarista Ingiriisku lahaayeen ku lahaayeen Masar Azhar ninka ugu sareeya iyo madaarista Ingiriisku lahaa ardayga thanawiga dhiganaya inuu ardayga thanawiga dhiganaya ka mushahar sareeyay ninkii Azhar u sareeyay Ingiriiska oo kale saasa ula dagaalameen bay tiri in tacliintoodana la qiimeeyo iyo waxyaabahan maadiga tan quraanka iyo diintana aad hoos loogu dhigo cagta hoosteeda la galiyo laakiin waxa jira Faransiiska oo kale iyo Talyaaniga waxay adeegsadeen madaarista quraanka in toos loo xidho oo la soo xidhay gabigeeda Zuhaira Sukri kitaabkeeda marka taasay ku sheeg ilmahaagu wuxuu macna ku leeyahay maxay wuxuu macna ku leeyahay kitaabka quraanka fahamsiintaad fahamsiiso waxaan ku gabagabeynayaa inagu haddaan Soomaalina waxaan nidhi quraan lix arrimood baa lagu baran karaa waxaa ka mid aha quraan waxaa lagu baran karaa hooyo qalqaalisa hooyadu haday ilmaha subaxdii intay diyaariso hooyada la kulanta wayra tira ilmaha subaxdii si fiican u diyaari hooyadu ilmaha subaxdii hadii inta iyadu salaada subax u toosto ay tukato oo si fiican u qureeciso si fiican ugu labisto ay madaxa u soo shanlaysa tiraahdo hooyo khayr allah ku siiyo intay dhunkato orado cashirkii aad nin khayr baa tahay waxbaad ka keeni ana huba macallin fiican baa ku dhiga ay la soo dardaaranto waad garan kartaa ilmaha waxa uu istaagay nisbi kamida moraalkiisi laakiin haday iyadoo jiifta intay lugta ugu tilmaanta tiraahdo balaaya kugu dhacday meeshii baas baa tagi baa meel lacagtuna lagu urursada alla anigu meesha hadda nicbiya barbalad kitaabkii meelaha ka dayo kitaabna garan mayno orad meelaha ka dayo wararad marun baad wax cuni doontaa ee nadhaaf oo iyadoo lugta ugu tilmaamaysa ay soo saartana ilmahaasi inaanu cashir fahmaynin waad og tahay oo aan waxba baran karin waxa la yiri hooyo qalqaalisa aaba quuris leh maalin walba inta ilmahaaga la soo saaro in la yiraahdo wararad fiigi la kaalay meeshu deefi bay ku kala socotaa nadhaaf iyadana waa moraal dil weey aaba quuris leh hooyo qalqaalisa lux qaad weyn waagi hore lux baan quraanka ku dhigan jiray macallin qaariya walad qayla dheer ya quraanka lagu bartaa baan oran jirnay macallinka qaariga ee codkiisa la maqlo waladka qaylada dheer ee quraanka markuu la ximinayo markaaba qofka dariiqa mariba uu maqlay warkaas suu wuxuu akhriyo muxuu ahaa saaka war macallin kuwa kale aba ku maqlay war macallin warkaamaad ka qabatid ka saxdid macallinku inuu tahaawun samayn baa la rabaa عجز إنانو كم وقم بالربا إنانو قرآن كلا خلده هي استهانيسن وفضوضيسن بالربا وحيا باسين هرتكم ما يهجرنا قرآن كوحوها مهنا أي ندتك كجسوا عنه قرآن كوحوها وحدتك الصومالي ذا اللي يقانه وحبرته قرآن كوحوها وحينا وح كلبرن إلى قرآن كبرنه